waa waxa ugu fiican oo timaha la marsado. Alaabtan ama maaskigan haddii aad timahaada marsatid waxaad dareemaysaa inay timahaadi kuu soo baxeen, sababtoo ah waxa ku jiro lactin acid wax la dhahayo, kaasoo ka qayb qaadanayo kabashada madaxa damage-ka gaaray, kaasoo ku gaari karto inuu qofkii jilcisa madaxi soo mariyo oo damage uu kasoo gaaray, inay timihiisa nafaqo aysan haysanin. wuxuu kaleetuu leeyahay inay timaha ka istaajiyo daadashada, siibashada. wuxuu kaleetuu leeyahay inuu timaha ka ilaaliyo cirada degdega ah ee qofka kasoo baxdo. wuxuu kaloo leeyahay inuu timaha dheereeyo, dhalaaliyo, maasha Allah, oo ka ilaaliyo timaha qalaylka, inuu ka ilaaliyo timaha wax kasta oo soo ataago. nala soco insha Allah, kanala soco janalka Karin iyo Qurxin. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وإد سلامي انت كحرن channelك كارن إقرحن، انت كحرن وإد سلامي انت إيقو عصب انت إيقو صوبير دونت وحا إد الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواو channelك كارن إقرحن. كارن إقرحن ما انت وحي إد الوداقيسا واحد بيعيه وحا صوتي مها آد وناكسن. أنا مروال بمركي أن وحسو قلنينو فيس يتيمو وحوال بها هذا وحن شاقنا فائدة dooda iyo waxa laga heli karo iyo waxa ay saacideyn karaan. ma ahan wax la iska soo geliyo, mana ahan wax la iska soo mala awaalay. waa wax oo dabiici ah. haddii aad rabtid inaad ogaatidna waa google gareyn kartaa, waa fiirin kartaa faa'iidada uu leeyahay iyo wuxuu leeyahay haddii aad taqaanid sida loo google gareeyo. haddii aadan aqoonina hadda anaga ayaa kuu sheegayne naga dhagaysta. halkaas waxaan ku haystaa waxaa waay hibiscus iyo liin. hibiscus waa ubax, hadda ka horna waan soo geliyay anigoo wajiga marsanaayo. waxaa kaleetoon haystaa rosemary ayaan haystaa, halkaan aan ku haystaa. hibiscuskana waan ka hadli doonaa, wuxuu u wanaagsan yahay. rosemarygana asagana sidoo kaleeto. waxaa kaleetoon haystaa castor oil, waa castor oil. timaha looma gaara iyadana aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay, inkastay ku wanaagsan tahay in wax lagu dhex daro ama saliido lagu dhex daro. hibiscuska waxa ku jiro wax la dhahayo lactic acid. lactic acid maxay tartaa? waxay tartaa madaxa ayay bixisaa. madaxa damage-ka gaaray ama dhibka soo gaaray ama nafaqa darra ha ahaato oo dhib madaxii oo haysto vitamiinskii aan loogu talagelin, ama inuusan haysanin oo qofki jilcisi iyo waxyaalo iska soo marmariyay oo damage uu kasoo gaaray. wixii damage problem oo dhan ayuu ka daweynayaa. maxuu ahayntood waxaa kaleetoon haystaa rosemary. rosemaryga asigana sidoo kaleeto aflaaqada cirada dadka soo degdegta ayuu u wanaagsan yahay. marka waxaan rabnaa inaan soo hagaajisano bal sidaan uga samaysan lahayna maaskiga. maanta codka xooga ayuu iga xiran yahay, cafwan. waxaan haystaa koob biyo ah ayaa horey digsiga iigu jiray, ama hal koob, koobka shaaxa lagu cabo. dadaa ku dhahaya maxaa waaye koobka, maxaa waaye galaaska. waa 2 koob oo biyo ah ayaa iigu jirta digsi. kadibna waxaan ku shubayaa hibiscuskii ayaan ku shubanayaa. waa ubax la qalajiyay hibiscuska. markii aan ku shubo biyihii kadib haddana maxaan ku shubayaa rosemary. rosemaryga marka sidoo kaleeto markii aan ku shubo rosemary kadibna waxaan ku darayaa liintii oo aan soo jarjaray ayaan iskula darayaa. intaas markii aan isku daray kadibna dabka ayaan soo saaraya, waan soo karkarinayaa 3 daqiiqo 4 daqiiqo si aysan nooga dhimin munaafacaadkiisa ayaan rabnaa. kadib markii aan dabka kusoo karkariyo waa arki doontaan sida uu noogu baxo biidnillahi alkariim. hada dabkii ayaan soo saaray already asigoon karkarin ayaa waxaa kasoo baxay midab qurux badan oo maasha Allah aad iyo aad u wanaagsan. madaxa maxaa la dhahaa alaabtan waxay siinaysaa inay kuu bixiso, kuu jilciso, inuu dhiigga madaxa ay si fiican u wareejiso. kadibna maxaa imaanaya markuu madaxa dhiiggiisa fiican u wareegto inay timaha baxaan ee kuu dheeraadaan insha Allah. waa wax dabiici ah. kadibna markii aan soo karkarsanay oo ilaa 5 daqiiqo aan karkarina liintii, rosemarygii iyo hibiscuskii, hadda oo dhacaankii inooga soo baxay sidaas aa ujeedid ayuu kusoo baxay. kadibna hadda dabka ayaan ka daminayaa. 4 daqiiqo wuu saarnaay. kadibna dabka ayaan kasoo daminayaa. dabki markii aan kasoo damiyay kadibna sidaas ayuu ku soo baxay oo wixii dhan ee isku baxeen liintii, hibiscuskii, rosemarygii, yacni color waxaan helnay maasha Allah aad iyo aad u qurux badan. kadibna waan ku soo noqonaynaa sidoo kaleeto markuu noo qaboobo ayaan ku soo noqonaynaa insha Allah. wuu soo qaboobay xoogaa oo yacni kulaylkii faraha badnaay wuu ka baxay. markuu ka baxay kulaylka faraha badan oo xoogaa noo soo qaboobo ayaan waxaan rabnaa haddana inaan diyaarsano sida aan uga samaysan lahayna maaskiga aan u diyaarino.
marka hore waxa u baahan tahay weel ama caag wuxuu doona ha ahaado markaas aad ku shubanaysid alaabtii aad samaysatay maaskigii aad u hagaajisatay timaha kaasoo aad markaas aad rabto inaad madaxa ku shushubto kadibna markii aad sidaas oo kaleento aad isku diyaariso waxa kaleeto u baahan tahay wax aad qashinka uga miiray sidoo kaleento oo kaa xigsanayo inuu qashinkii kaaga dhicin biyihii si uusan madaxa dhowdi uusan kaaga dhibin markii aad shaleynaysid ama dhaqaysid kadibna waxaan soo qaatay shabaqaasoo af leh oo sida dibaaladii oo kale ama dibladii oo kale ah kadibna waan ku shubtay caagan yar ayaan rabaa iskula shubtay kadibna sidaas iyo igu soo baxay qashinkii oo dhanna wuu iga reebay intii igu soo dhacdana waxa iga sii reebay shabaqii ayuu igaga hireen يعني marka waxaa noo soo baxay marka juice ama maski oo maasha Allah timaha aad iyo aad ugu wanaagsan oo yani timaha ku bixinayo hadii aad madax xanuun leedahay madax xanuunka ka bixinayo hadii ay timahaada dib haysteen oo kaleento dibkana ka bixinayo alaabtan waxa ku jirta lactic acid wax la dhahayo kaasoo aad iyo aad ugu wanaagsan inuu madaxa soo kabto inuu fitamiinada ka maqnaayo dhan helo inay timaha maasha Allah xariir ku noqdaan inaysan timaha dhaqso cirro aysan kaaga soo degdegin inay timahaada noqdaan timo dabiici adag siibashada jajabka aflaaqada yani waxyaalaha ku jira madaxaada diidayo mana malaysan kartid wax walba oo timaha wanaagsan waa in la wadaagaya insha Allah oo anigaba aan isticmaalo markii aan sidaas oo kale u soo diyaarsid aan weelkan aan ku soo shubto markii hore inta maxameys inoo yiile wixii aan ku soo aragtay rosemary iyo wuxuu ahaa hibiscus lean iyo castor oil kii ayaa marka hadda dib u isticmaaleena castor oil ki qiyaasta aniga isticmaalayo waa 2 macalgo oo macalgada yar ee cuntada aan ku cuno kaleeto ayaan ku daraaya يعني ماسكيga aan soo diyaarsaday kadibna markii aan isku daro kaleento waxaan suubinayaa waan isdhex gelinayaa oo waan isku ruxayaa kor iyo hoos yani si saliid ma ujeedaa yani hoos ay soo aadoosa يعني si isu wada galaan ee biyihii iyo saliidii iskula falgalaan markay sidaas oo kale taasmaysid kadib ayaa madaxaada marin kartaa oo diyaar u yahay markaas inaa marisid maaskiga madaxa marka la marinayo waa marka oo madax dhaqid u baahan yahay dada ku weydiinayo aniga mar walba sheego dhahay maalin walba ma marina waqtiga oo madaxa iska dhaqaysid oo kale isbuuci mar 2 mar bishi mar hadba intii aad dhaqatid oo kale ayaa marinaysa waa ku massage gareynaysa madaxa meel walba ayaa ka gaarsiinaysa timahaaga dhamaantood ayaa gaarsiinaysa kor iyo hoos qayb hore ee timaha ka adag yihiin ayaa gaarsiinaysa marka maskigan waa mask cajiib ah rosemary-ga wuxuu awood u leeyahay inaysan dadka ku soo degdegin cirrada uu ka difaaco daadashada timaha iyo siibashada iyo inuu madaxa si fiican dhiigiisa u wareegto kaasoo ka qayb qaadanaya inay timaha soo baxaan maxaa ku jiro maxuu ahaynto hibiscus-ka asigan sidoo kale wuxuu leeyahay lactic acid wax la dhahayo kaasoo timaha damage ka gaaray fitamiinada ka dhinteen yani vitamins aan haysanin waxaasoo dhan inuu usoo kabo fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqatid janalka karin u qurxin subscribe leh beelka on ka dhigo nagana soco waxyaalo dabiici ah kaasoo aad ka heli doontid insha Allah waxaan idin tagay salaanta islaamka taasoo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ku soo dhawaaw janalka